بسم الله. waxaan aad iyo aad runtii aan leeyahay ilaahay xilkiisa ha u fududeeyo taliyaha cusub ee xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Maxamed Aadan Axmed oo runtii aan aqoon u leeyahay aan filahayo meesha hadda xoogga dalka Soomaaliyeed uu marahayo inuu ka sii wadi doono waxaan leeyahay xilkiisa ilaahay ha u fududeeyo ummadda Soomaaliyeed iyo saraakiisha Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan gacanna siiyaan taliyii hore xoogga dalka Soomaaliyeed oo asagana runtii meel fiican keenay xoogga dalka Soomaaliyeed isagana waxaan leeyahay waa mahadsan tahay inagu dawlad kaste oo aan lahayn ciidan waa daciif weeyaan waxaan codsanayaa in ciidankeena sidoo bari ahaan jiray uu noqdo dadka Soomaaliyeedna ay gacan siiyaan saraakiisha iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wadaniyadina la abuuro dawladaha ciidamada Soomaaliya ay ka joogaanna si aan uga kaaftoono waxaan kale oo aan codsanayaa in ciidanka lagu dadaalo noloshiisa iyo qaabkii uu isku raaci lahaa waayo ciidanka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed buu ka yimaadaa dhalinyarada Soomaaliyeed waa joogtaa macallimiintii iyo saraakiishii canshuurta dalka wax ku baratay waa joogaan inta markii la isla helo waxa loo baahan yahay oo kaliya dhaqaalahoodana in la raadiyo wadaniyadoodana la abuuro dalkeenana uu noqdo mid isku filan taasi waa qodobka labaad annagu xamar ama magaalo madaxda waxaan joogi jirnay ayadoo difaac annagu uu 15 May iyo sayidka hoostiisa yahay maantana ilaahay mahadiis gobolladii dalka oo dhan hal gobol mooyaane gacanta lagu hayaa mahadaasna waxa iska leh dawladda federaalka ah maamul goboleedyada iyo madaxda Soomaaliyeed waxaan mar labaad aan leeyahay Maxamed Aadan ilaahay xilkiisa ha u fududeeyo mar saddexaadna waxaan leeyahay daahir oo meel fiican baad keentay gabagabadii waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa wasiirka gaashaandhigga oo runtii markuu taliyaha xoogga ahaa inta badan laga xoreeyay kooxihii nabaddiidka ahaa dalka Soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay ciidankeeda isugu geysato sidii ay u dhisan lahayd oo ciidanka uu u noqon lahaa mid dalka hanto oo la isugu dhafi lahaa guddiga isku dhafkana waxaan ka codsanayaa oo ciidamada inay shaqadooda dib u bilaabaan oo wixii u dhiman ay dhamaashtiraan waa mahadsantihiin